allaha u naxariistay injineer abshir muuse oo ka mid ah aasayaashii puntland iyo waliba mas-uulkii ugu sarreeyay hay'adda tamarta iyo biyaha puntland ee baasaweyn ayaa maanta oo jimcaha lagu aasay magaalada qardho meydka marxuumka oo siday diyaaradda air Djibouti ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 6 bisha afraad sanada 2018 laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha magaalada qardho iyadoona ay weheliyaan ehelka marxuumka iyo mas'uuliyiin inuu ka mid yahay siyaasi Cali Cabdi Awaare marxuumka oo lagu aasay qabuuraha Xaaji Aadan oo ku yaala dhinaca koonfureed ee magaalada qardho ayaa salaada jinaasada waxaa ku tukaday madaxweyne ku-xigeenka Puntland labada gole ee dawladda sidoo kale waxaa ka qayb galay jinaasada marxuumka ismada iyo waliba siyaasiyiinta ugu caansan Puntland markii salaada jinaasada lagu tukaday Allah u naxariistay injineer Abshir waxaa halkaas uga duceeyay oo naxariistii janno lagu bariyay boqor Burhaan boqor Muuse Islaan Ciise Islaan Maxamed Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaan Islaan Burtinle Beldaaji Cali Faarax iyo ismadii kale ee goobta ku sugnayd qabri baynu dul joognaa jinaasaynu joognaa inaynu u duceyno kaliya weeye maanta xilka ina saaran waxaynu leenahay Allah u naxariisto innagana Allah inoo ka daba naxariisto ilaahay idankii aynuna iscafino ummadeena aynu u duceyno in ilaahay waafajiyo xaqa in kitaabkiisa ilaahay midabka ka siiyo aamin in xoodka nabiga ilaahay ka cabsiyo aamin aamin in ilaahay jannada firdaws geeyo aamin Allah innagana waxaan ilaahay ka baryayaa inteena ka soo qabshay dadka kale oo muslimiinta in ilaahay ka saaro qafladda ama halmaanka aakhiro وأدونك الله يسكو هالين أنا لا يكبر هنا نحرستي كنا حسي إلهي نحرستي كنا حسي إلهي نحرستي كنا حسي إلهي حقه وليه يكون مسابح مسابح يساق عليه ربها مسابح إلهي اللي ساق عليه الله هو لي قرقار يساق عليه الله هو قرقار ومد الصومالي إلهي كسم رسيو قارهام قويسكي وحنوقع تعسيدنا إن إلهي سمريه ما كسيو isagana oo nin helujana waa u duceynayna umada inta leego isugu timi oo khayr bay qabaan oo wada duceeyay marka isagana ilaahay ha u dambi dhaafo naxariis iyo jannaan ilaahay uga baryaynaa su'aasha Allah u fududeeyo janno iyo naxariis ilaahay ha siiyo dhammaan wixii dhintay ilaahay u naxariisto mas'uul buu ahaa Soomaaliya qarankii Soomaaliyeed mas'uuliyad weyn soo qabtay Puntland wuxuu ahaa asaasayaashii Puntland asaasay wuxuu ahaa nin khayrka iyo wanaaga iyo horumarka ka shaqeeya ilaahay waxaan uga baryaynaa jannada firdawsa aamin aamin mawcido uu tiriyay sheekh Xaaji Yuusuf Sharmarke wixii kuwa agbaad ka xamaqaysaa adduun aadan joogaynin baad daba ordaysaa aakhira salka ayahayna waa aga maraysaa haddii ilka lagu jiifiyo lagu soo oodo aaminkaba wax ku iman lagu eeba soo diray aragooda lama eegi karo siday u unmeenay الله iyo rasuul waayo way ku oran doonaan hadaad ehlu khayr tahay xaqaad ku ajibaysaa hadii kalena la adri way orahdaad hadaad ehlu khayr tahay xaqaad ku ajibaysaa qabrigay waxay kaaga ishmeelay gaadhay qabriga la ekaysiine jannadii albaabkaaga furin udugedeedii aroosidis u saxay ku oran aamin baa tahay sida aynu maanta u dul joogna janaasadan ayaa qof walba u dhimanaya كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أدون كان سمدا يدولك ذلك واحد جوغو دون واد دمانيان إلهي سبحانه وتعالى كليا هريا مركا ما دام أينو دمانينو ما دام أينو غيريونينو إنينو آدي آدو دادالنا للربا بركاتو وحين كان مهد علينا سيدا أسو أجبتين كسو غيب كالكا آسكا جنرال أبشر موسى سعيد ما أنت وحو باهيا إن لو دعويو وكليا وحكا لهم باهنا وعلى الله إلهي قبرك هو سعيو جنة فردوسا إلهي هكا ورابيو مرحوم إنجنير أبشر موسى سعيد وها أساسيه بنتلان قدوميه قراها وضطشيغا بنتلان ما أنت هرتين ريال وعون آخره إننا وحالينو كباهيهي إننا نعفينه وندعينه إننا اسم سابحنه ومدى صوماليادنا meel joogtaba aynu ducayno siyaasi Cali Cabdi Awaare oo kamid ah siyaasiyiinta Puntland ayaa si kooban uga hadlay marxuum injineer Abshir Muuse isagoona sheegay in lagu xaasan doono doorkii uu ku lahaa asaaska Puntland taariikhda uu ku lahaa geeyiga Soomaaliyeed iyo gaar ahaan Puntland maarayihii wakaaladda xoogga korontada ee Soomaaliya ayuu ahaa oo adagtiino ilaa warshado tiro badan oo ka hirgeliyay gobollada dalka Soomaaliya waxa kale oo runtii la oran karaa Puntland
isbaarooyinkii badnaa iyo dhuxushii markaa aad loo rari jirin mas-uulkii joojiyey oo runtii 95kii 96kii isagoo gudoomiye ku-xigeenka SDF runtii nafta u horay buu ahaa isbaarooyinkiina wada qaaday taariikhdiisa mid halkan lagu koobi karo ma aha ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay oo marxuumka alle uga bariyay inuu jannatul firdaws ka waraabiyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waxaa sidoo kale xusan in madaxweynaha Puntland garoonka diyaaradaha ee magaalada Qardho uu magacdaray injineer Abshir Muuse ilaahay waxaan uga baryaynaa meydkan hadda noo horyaalay inuu ilaahay u naxariisto anaga inoo daba naxariisto ilaahay inuu qabriga waasiyo ilaahay inuu su'aasha sahlan siiyo su'aasha fahamsiiyo su'aasha ku dhawaaqo ilaahay jannooyinkiisa jannooyinka ugu fiican baan ilaahu uga baryaynaa ilaahu dambi dhaaf baan ku boodiinay ilaahu bani aadan baan nahay waa dambownaa waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto guud ahaan gaar ahaan reer Puntland uga tacsiyadeynayaa geerida xaq ah ee ku timi Abshir Muuse Saciid geeridu waa xaq qof kasta oo inaga mid ah mid hadeeru ducaynaya iyo mid kalaba waxay la tahay waa la maraya qof kasta oo nolina waa dhimanaya waxaan si gaar ah uga tacsiyadeynayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday Abshir Muuse Saciid waxaan leeyahay samir iyo iimaan kulliyiin isagana waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha siiyo guud ahaan Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba mas'uul Soomaaliyeed buu ahaa uu naga geeriyooday dhammaanteen ilaahay wixii ducaaha maanta halkan laga tiriyay ilaahay waa aqbalo wax kale aan ku darayo ducaa ma jirto intii maanta meesha laga yiri ilaahay waa aqbalo ilaahay dhamaan u naxariisto ilaahay anaga nooga daba naxariisto Abshir wuxuu ahaa oday Puntland wax badan oo dadka farkutirisa ay tareen Puntland ayuu hormuud u ahaa waxqabadkiisii shakhsiyeed iyo isagoo ka mid ahaa aasaasiyaashii Puntland wax badan anagu uma qaban karno inaan u ducayno baanu tari karnaa waana loo duceeyey waana ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu aqbalo laakiin maadaama waxba tari mayso laakiin maadaama xusuus gaar uu nagu lahaa waxaa dowladda Puntland ay go'aansatay in loogu magac daro boorka garoonka Qardho Abshir Muuse Saciid insha Allah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun